kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogteen kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan ugu talagalnay waa barnaamijkeena habeennimo. haddaba caawa barnaamijka waxaa kusoo gudbin doonaa warar xiise leh oo ku saabsan dhammaantood dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe. waxaan marka hore ku bilaabaynaa sheekada ku saabsan Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay in ninka la dooran doono ayatullahiga Iiraan ogolaanshiyihiisa haddayna ahayn inaanu wax badan joogi doonin. wuu hanjabayaa mogta wuxuu leeyahay ayatullahi kale haddaad doorataan oon anigu raalli ka ahayn ninka aad dooranaysaan aniga haddaan la weydiinoon raalli ka noqon wax badan ma joogaayo. iyaguna waxay leeyihiin halkan Venezuela ma saaxiib hal maray kuu toostay ayatullahiga odagii aad dishay markan waa laysku dhammaanaa waxaa rabto samee. marka sheekada ayatullahiga soo dhawaatay hadda magacaabistiisii oo maaragtay mar dhowaa lagu dhawaaqaa leeyahay. qaar waxay leeyihiin saacado, qaar waxay leeyihiin 2 maalmood 3 maalmood gudahood. marka ninkan hadalkaasuu sii tuuray wuxuu leeyahay ayatullahi aanan anagu raalli ka ahayn wax badan ma joogaayo. marka wuu hanjabayaa. haddaba markaan idin tuso Al Jazeera waxay leedahay Trump wuxuu yidhi ayatullahiga Iiraan ee soo socda wax badan ma joogi doono haddaanan anagu waafaqin oonan ogolaanin. warbixinta waa sii socotay waxaa leeyahay iyadoo ay soo dhawaatay xilligii la dooranayay ayatullahiga cusub ee Iiraan ayaa madaxweynaha Mareykanka Trump maanta oo axada wuxuu sheegay in markaa hogaamiyaha cusub aanu wax badan joogi doonin haddii aanu helin sida uu yidhi ogolaanshiyahayna. shabakada ABC ee dalka Mareykanka ayuuna arikaa ka sheegay maray wax ka weydiisay ayatullahiga cusub ee soo socda. ninka wuxuu leeyahay annaga haddaana ogolaanin wax badan ma joogaayo. marka hawshaas halkaas iyaduna maraysaa. xaalku marka waa dhanaan tahay nimankan ayatullahigooda sugayaan ma ayatullahigooda magacaabanayaan. waxaa sidoo kale aanu gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ee barnaamijka. waxaanu galaynaa sheekada ku saabsan Sacuudiga oo sheegay maanta inay dad ka dhinteen. weeraradii lagu soo qaaday Sacuudiga inay dad ku dhinteen. haddaba saacadihii lasoo dhaafay khaliijka iyo Iiraan waxaa ka dhex socda ayaan idiin soo gudbinayaa. Al Jazeera waxay leedahay weeraro cusub ayay Iiraan waxay ku qaaday khaliijka waxaana la sheegay 2 qof inay ku dhinteen Sacuudiga. dhanka kalena dabkii ka kacay airportka Kuwait in markaa wax laga qabtay oo hadda la baktiyay oo la damiyay. Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Kuwait iyo kulli waa la soo salaama maanta maca Bahrain iyo kulli waa la salaam. marka waxaa la leeyahay nimankan sababta loo weeraraa marka maxay waxa loo weeraray leeyihiin nimankii Mareykanka maba dhageysanayaan nimankan khaliijiinta war markooda ma kula socdo. khaliijiinta waxay yiraahdeen dhulkeena laydikama soo weerarayo. okay diyaaradahana soo weerarayo waxay ku dhuumanayaan ay dhaheen ee ka soo wareegayaan wadamada khaliijka si khaliijkan dagaalka loo soo geliyay rabaan Mareykanka iyo Israa'iil. khaliijkan meesha fadhiya inay markii ugu horeysay ay ku saf noqdaan Yahuudda iyo ayaga inay isku saf noqdaan. Sacuudiga Yahuud xiriir lama samaysanayo leh inay iyaga iyo oo safka Yahuudda ku jira ay dalka islaamka dadka muslimiinta baabi'iyaan. marka meeshan waxaa la ciyaarayaa siyaasad fog. nimankan waa lagu soo riixayaa dagaalka waa lagu soo riixayaa mawjada. haddaba markaan idin tuso ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan iyaguna waxay sheegayaan Iiraan waxay sheegtay in markaa diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay adeegsanayeen hawada dawladaha dariska nala ah si ay noo soo weeraraan. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay adeegsadeen hawada dawladaha dariska nala ah si ay noo soo weeraraan taasoo khatar gelinaysa amniga gobolka. waana ka digaynaa u leeyahay nimanka marka Sacuudi ma wax weydiinaya Kuwait oo teeda haysato oo maal wax la weydiinaa waxay ugu tala galeen marka inay halkaas nimankaasay u wadaan Iiraanna inta xanaaqdo duqayso ayagana maaragtay ay soo agmaraan dhankooda ka soo weeraraan. cabdishalay waxaa lagu leeyahay
xarunta biyaha ee Iiraan waxaa laga soo weeraray Bahrain xaggeed fiiri marka nimankan Iiraaniyiintu waxay leeyihiin annagu meeshaan nala ka soo weeraray waa iska difaacayna raalli ahaada dariskeenu laakiin Mareykan iskama celin kartiin war idinkama maqlay waa u jeednaay iska aamusa annaga jugta ka gelinaynay leeyihiin hawsha iyaduna halkaas maraysa haddaba markan waxaan galaynaa warbixin kooban oo falanqeyna oo ku saabsan xaaladdu hadda sida ay tahay Professor Yusuf Shaafici Yusuf oo jooga magaalada Muqdisho ahna falanqeeye siyaasadda caalamiga ayaa hadda qadka ku jira kusoo dhawow Professor Shaafici waa kugu soo dhaweynayna barnaamijka marka ugu horeysa waxaan jecelnahay Trump wax uu filayay muu kala kulmay Iiraan markuu weerarka ku bilaabayay mis wax aanu filayn baa uga soo baxay bismillah mahadsanid Nadaaro waan salaamayaa dhammaan Soomaalida meel walba ay joogaan waxa uu filayay Mareykanka iyo Israa'iil ba horta waxay ku galeen istiraatiiji ayagoon samaysanin indhalaan ayay ku galeen sida muuqata waayo Trump wuxuu lahaa 4 week ayay nagu qaadanaysaa isagoo ka tusaale qaadanaya Ciraaq sidoo marka haddana hadalkiisa waxa ka hor imaanaya Pentagonka oo sheegay inay bilooyin ay qaadanayso arrintan taasoo contradiction ah oo u muuqata inay dagaalka iska galeen kaliya sida uu Larjani sheegayna waxay islahaayeen inay darsigii soo celiyaan ay soo celiyaan Venezuela oo kale waxay islahaayeen meesha siyar baad ku qabanaysiin waxay islahaayeen mar haddii la dilo Ayatollah iyo kuwi kale way isdhiibi doonaan way ku fashilmaan buu yiri waxay islahaayeen haddii jabhad la sameeyo oo Mareykan soo gala waad qabanaysiin way ku fashilmaan ayuu yiri waa sida isagu uu yiri weeyaan marka taasina waa iska cad marka xaqiiqda la eego marka la soo gabagabeeyo Mareykanku wuxuu filayay inuu muddo yar ku qabanayo marka miscalculation baa ku yara dhacay waaye arinta labaad ee ku weydiinaya waxay tahay Professor sheekada ku saabsan weerarkan lagu hayo Khaliijka ma Iiraan kaliya ayaa duqeymaha ku haysa mise Israa'iilna qayb ka tahay Khaliijka waxa weeraraya shaki fara badan baa arimaha ka taaganaa la leeyahay maxaad marka arimaha ka dhihilayd weerarkan Khaliijka iyo Iiraan ay ku hayso waa dhinac wadamadan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waxay hadda ka daaleen kaabayaasha ay tooska u beegsanayaan Iiraaniyiintu taasoo dhibaato ku keentay oo dadka qaar leeyihiin waxa ka dambeeya Israa'iil baa ka dambaysa marka la fiiriyo in UK meeshadii Qobrus ay ayagu weerareen oo ayaguna diideen in Iiraan ka dambayso حتى إيرانينتو أي شيئين هذانا هدي أي أيقو كذا بيان سعودية أي إمارات كو أي توسو ويران وحيكون نقنيسها لبضو ضبا ماتشوال ديستراكشن لفتة استراتيجية دقات إيران ولا فيعنا إنه كو أكيس لا يهد ميلها كلية أي دقينهين مريكنكا هذانا واحد مودا إنه يفرين ودرس عالم كا إنه قوة وينهين دقال كدو استاغو عنشورتي وحياله أي سينيان ديفنس ay siinayeen Mareykanka waxay isleeyeen hal lagu siiyo taasna waa dhinacaas waya ugu dambeyntii Professor Shaafici maxaad u malaynaysaa sheekadan inay ku dhamaanayso oo Mareykanka laga guuleysanayaa ma Iiraan laga guuleysanayaa ma barbar dhacba lagu kala bixi doonaa markaad qiimeyn samaysay maxay kula tahay يعني ما حين نقول دونتا سامنتو طبعا وحي سامن دونتا دقالها دون كي سامنسا سكوريتي كوي سامنسا وي هرمز واحد مي بارشالي هدنا وحلقة بقيا باب مندب او مريكنكي iyo Israa'iil loo digay shirkadii waweynana ay aad moodid inay hadda ka wareegayaan marka طبعا marka ugu dambaysa waa mutual destruction waa cidna ma guuleysanayo waxay u badan tahay Iiraan inaan laga guuleysan karin maadaama hubkii maalinka mid ka dambeeyay ay la soo bixiso resilience ay noqonayso wada xadaaro leh ma noqonayso luqma basiita oo tartiib saas
ugu dambeynna waxay noqonaysaa in dagaalka la joojiyo Mareykanku badanaa dagaalku u galo kuma guuleysto kadibna apology buu sameeyaa marka aniga fikirkayga waa sidaas mahadsanid Nadara waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay Professor Shaafici Yuusuf oo ah falanqeeye siyaasadda caalamka ah oo ku suganaa magaalada Muqdisho oo toos noogu warramayay haddaba qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu joognaa qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimo cajiib ah ayaynu ku soo qaadanaynaa Israa'iil inta u dhiman ee ay dagaalami karto Iiraanna inta ay sida hadda ay u dagaalami karto maalin kasta jugta la isku haynayo Israa'iil marka maxaa u dhiman ma intaas maalmood kadib haddii ay dagaalanto waxba shaqeyn waayaan khalaas waa noo dhamaatay leeyahay haddaba marka aan ku hormarno Israa'iil warbaahinta Israa'iil waxay sheegayaan Tel Aviv inay hadda diyaar u tahay ilaa 5 toddobaad kaliya inay markaa dagaalanto 5 toddobaad oo toddobaadkii hadda soo dhamaaday aan ahayn 5 toddobaad oo kale waa bil iyo xogaa waaye iyo toddobaad inay dagaalami karto bil iyo xogaa kanaalka la yiraahdo 12 Israa'iil ay leedahay wuxuu sheegayaa Israa'iil inay hadda 5 toddobaad oo kale ay diyaar u tahay dagaalka 5 toddobaad kadib yalla weydiina wixii dhici doona laba yaqaan haddaan laga soo gaarin waxa leeyahay warbaahintu waxa leedahay waa loo dhamaatay leedahay marka 5 toddobaad 4 toddobaad waa bil iyo toddobaad kaliya dagaalami karnaa ilay bil iyo toddobaadkaas waa in marka Trump ayagu inta isku tagaan Iiraan la soo afjaro haddii la soo afjari waa xaalkeen waa loo yaabaa ay taagitahay Israa'iil marka meeshaas joogtaa waayahay Iiraan ku soo hartay marka Iiraan iyaduna waxaa hadlay oo ka jawaabay arikaas ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan iyagu waxay sheegeen inay diyaar u yihiin dagaal ballaaran 6 bilood oo marka aan la kala tagayn macnaha dagaal ballaaran oo sida hadda uu socdo iyo ka daran 6 bilood oo soo socota diyaar u neenay 6 bilood kadib waxba gaabanay moogtay gantaalaha weeraanaya waxa weeraan nidaam kale oo dagaalku isku bedeli doona laakiin 6 bilood oo hadda la soo socota diyaaraneen sida hadda uu socdo dagaal ballaaran aan diyaar u nahay sida hadda meel walba ku rideen ay u soconeen Israa'iil maxay tiri 5 asaabic 5 toddobaad khalaas waa bil iyo xogaa marka waxa leeyahay marka 6 bilood iyo martay iyo 5 toddobaad wax isku dhow ma marka sheekadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijka adinkuna fakarkiina aragtidiina waa muhiim noo soo qora barnaamijyada ku xirnaada like garay oo share garay haddaad cusubtaa subscribe ka helo YouTube ka si aad noogu soo biirto Facebook-na follow garay nabadgelyo